kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii odayaashu way garanayeen laakiin dhalinyaradu waqtigaas waxa la yahay qaarkood inay gadaal dhasheen yaa waxa jiray magaalada Muqdisho waxa ka dhacay nin oo baadari ah yaa la dilay kaniisadana lagu dilay markii la dilay wixii dilay lama yaqaanee waxa loo saariyay marka wadaadada dilaalay waa 89 wadaadadii markaas hor jooga u ahaa ummadda ayaa la xirxiray oo kamid ahaa Sheekh Abdirashiid Shacli Suufi ay kamid ahaayeen ayaa la xirxiray markii la xirxiray maanta jumcada oo kala yaa banaan baxayo kaas balbalaara iyo masaajidkii markii jumcada la tukaday ayaa la soo baxay ciidamadii dawladda iyo nabad sugidoodii iyo koofiyad cas ayuuna soo baxeen baroonada soo baxsadeen dadkii waa la xabadeeyay wax la dhaawac waa la kala eriyay dadkii waa maalin jumca ahayd waa 89 jumcadii sabtidii ku xigtay jumca sabtida ku xigtay moogtahay xamar markuu mudaharaadkaas ka dhacay anana baydhaan joognay baydhabaan mudaharaad kale ka sameeynay tadaamunan maca culimada la xirxiray annaga oo taageerayna mudaharaadkii dhacay reebaydhow yaqaan meesha afridoodka ayaa la isugu yimid oo sawirkii maxamed siyaad barnaamij ku dhigana la jijibiyay dagaal baash mudaharaad laga sameeyay askarti booliska la keenay waa la kala eriyay dadkii galabtii aan isku soo noqonay marka dhalinyaradii iyo mid yar oo dhalinyaro oo hata dadkan midna anaga markaas waxaan dhiganaa dugsiga sare asaga dugsiga hoose iyo meelahaas yaa ku wuxuu weydiiyay adiga waxa la isku haystay ma taqaan adiga dawlad iyo waxbay xirtay iyo culimada la xiray waxa laga wado ma taqaanide mudaharaadkan oo ku jirtay waa qaybaad ka ayade su'aal weydiiyay maxaad u socotaa adiga waa ku yar hada ku weydiinay uu fikiray magaas ana meeyko diintii la hoojiyay wuxuu dhaan wax la isku